大家好，今天我们继续学习索马里语第一课的内容，这是第3部分，前面我已经录了2个短视频。今天我们学习对话，我们将认识第一位主人公，他叫 Bill， 他是英国人，他即将去索马里工作。Bill 在伦敦学习索马里语。Bill 有个朋友叫 Yunis 是索马里人。Yunis 教 Bill 说索马里语。对话 Wada Shekesi waryaa Bill subax wanaagsan. waryaa Yunis subax wanaagsan. ma nabad baa? waa nabad, iska waran. waa la fiican yahay. 我们再听一遍吧。waryaa Bill subax wanaagsan. waryaa Yunis subax wanaagsan. ma nabad baa? waa nabad, iska waran. waa la fiican yahay. Yunis 说 Hi Bill， 早上好。Bill 说 Hi Yunis， 早上好。一切都安好吧？ Yunis 说一切都很好。Iska Warden， 有什么事情吗？一切都好吗？ Bill 说一切都好。字母 X 的发音，它是一个咽部的摩擦清音，相当于是哈哈。我们听一下录音吧。Head wuu baxay bax 就这些吧，再见。